ma ninkii maaragtay ku bikra jabiyey baadan garanay. إنا لله وإنا إليه راجعون. markaasaan ku uri waad edab daran tahay waanad akhlaaqun tahay oo waad iska guursatay ninkaasi miyuusan talo waxba ogeyn. waxaan kasoo jeednay reer aad u lacag badan. waxaan dhigan jiray iskuul ilaa heerka secondary. markaa secondary-ga aan form 1 ahaa waxaa noo dhawaa 2 wiil oo maaragtay wiil ahaan 2 wiil oo saaxiiba ayaa noo dhawaa. marka mid ahaan gaari buu wadan jiray midna saaxiibku waxa may kala hari jirin. xataa maaragtay isku iskuul baanu ahayn isku galaas baanu ahayn reer dad jaara baanu ahayn. waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah inay igu yiraahdeen ma ku sii qaadnaa anagoo maaragtay aan guriga u sii socdo. marka inankii waxay igu yiraahdeen ma ku sii qaadnaa duhurkii markii iskuulkana la kasii fasaxay way sii qaadeen gurigii bay geeyeen. maaragtay iskuulkii maanu tegin roob badan baa da'ay. dhowr cisho kadib marka dee wadankii marka roobku da'o waa seeraha banaanka loo yarbaxo iyo doog iyo waxaas aad loo xiiseeyo. aad iyo aad. maanta dambe waxaa dhacday in roobkii inay inamadii ku yiraahdeen ma ku sii qaadnaa ugaasoy. markaasaan ku yiri walaal may waan degdegsanahayo. markaasay ku yiraahdeen may waan ku sii qaadanaa laakiin maaragtay waxaanu teganaa galabta yacni seeraha. marka waxaan ku yiri anu ma tegay guriga isii dhigo gurigii bay dhigeenoo way iska tageenoo aduu dhowr cisho markay sidaa ii qaadqaadayeen oo maaragtay guriga waa inaan aan dee weligay isla soo kornay iskaranano iyo inanka saaxiibkiisa ayaa maalintii dambe way i qaadeenoo markaas waxay igu yiraahdeen halkan baan kasoo noqonanaa haye waxaan soo yar daawananaa yani seerahan soo daawananaa markii waa soo noqonanaa haye waayahay heblaayana waan sii maranaa haye waayahay. waxaa dhacday inaan seerihii tagnay meel dooga oo kaaliska araga cabaar ba halkaa ay sawiro aan ka qaadqaaday labadoodii ay dhaheen sawiro naga qaadqaad. sawiradii baan ka qaadqaaday laamigu in yarbu meesha markaa u jirtaa. adigu markii dambe inamadii way igu keenkeeneen aniga bay igu keenkeeneen dhegeysi bay dhaheen anagu waxaan jaaniska dhan oo dhan maaragtay kuu siinanay oo kalsoonida kuu gelinanay oo aan weligaya allahay maaragtay aan marba kuu sii qaadanay marna gurigaaga kuu keenanay marna iskuulka marka maaragtay aan usoo socdaan kuu soo qaadanay dan baanu kaa lahay. adkaate haye walaa maxaa dhacay danta iga leeda waa maxay ina hebelow ma aniga waad igu keenkeentay weligan yaalihin jaarka ahay aduu nimanka waa isku kala qajabaareen way kufsadeen. isu ka qabteen haa haye way i kufsadeen anigii markay i kufsadeen marka midi halkaa i dilo oo i qabto oo i kufsado haddana ka kale ayaa ii qabta oo ii kufsada. hadday i kufsadeen oo ay say rabeen iga yeeleen oo wax walba igu sameeyeen acuudu billaahi min ashaytaan rajim oo ay wax walba igu sameeyeen ayay bartii igaga tageen. markaas bartii meelkii igaga tageen waxaa dhacday inaan maaragtay halkaa ooyey oo oohintii markii dambe iska maydhay iska biiyey oo dharkayga baan iska xidhay. laamiga markaa usoo lugeeyey nin gaari wata gaari yaro gawadhid la odhan jiray garande nin wata ayaan gacanta u haadiyey uu ii istaagay wuxuu igu yiri adeer maxaa ku dhacay meesha ku keenay uu arkaa dee inay wax iga khaldan yihiin. markaasaan ku iri adeer nin aan isla sheekaysano ayaan isku yar xanaaqnayo deetana wuu iga cadhooday bartii buu igaga tegay. waxaa dulligaa muxuu ahaa odayga muraayahaada iga yar eegaayo. markaasuu igu yirahda adeer ma waxbuu ninka kugu sameeyey. masaan ku dhahda may adeer waxba iguma samayn ninka ma garanaysaa. haa waan garanayaa. waa khayr haddaa adeer nimanka meelahan looma soo raaco hadduu rabo inuu ku shukaansado iyo haddaad isjeceshihiin iyo hadduu ku jecel yahayba adeer gurigiina lagama fogaado. haddaabad gurigiina aad ka fogaato wax walbaa ka suurtooba ragga. haye adeer hoostasan ka ooyaayo. adigu magaalada markaan soo galay odaygii waa i dhigay bajaaj baan soo qaatay gurigaygii baa imaaday saan usii ordaya qol baan galay. iskuulkii waxaan idhi hooyo waan xanuunsanayaa 7 casho maan tegin. oohin habeenii maalin baan ooyayey. haddii aan isdhaahdo hooyadaa u sheeg iyo reerka waxaan isleeyahay waxaa lagu odhanayaa tii la kufsaday adduunkao dhan ba lagaa ogaanayaa. waa qarsaday markaa haye hooyaday uma sheegin walaashii uma sheegin qofna ugama sanqarin isagii waan arkay ma odhan maxaasaa igu gashay xataa.
waxaa dhacday iskuulka labada xiisadeeda hore haddaan tago il markaan saaro inaan ooyo oo rafaado oo aan ka soo cararo iskuulkii waxaan kuri oo iskuul mar haba waa ka baxaya iskuulka hooyii aabe waa i dileeno waa la i khasbayo car u gooba layguli mar dambe iskuulka waxaa dhacday markaa iskuulkii markaan tago dhibkaas iga haysta ninkii labadii nin baan arkayaa cid aan wax u sheegi karin iyo ma jirto oo gabigayga waa cabursanahay naxdintii adduunka ay haysa rafaadkii adduunka ay haya waxaa dhacday markaa inaa maaragtay aan go'aansaday inaan tahriibo marka intaanan tahriibin miisaankaygu wuxuu ahaa 5 kiilo hal mar baa waxaa noqday 60 5 baan ahaayo 60 kiilo waxaan ku noqday 21 cisho inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun inta waa cuni waaya habeen oo dhan waa soo jeeda waa ooyayaa maalin oo dhan yacni waxa lagu leeyahay maxaa ku haya reerku halkan qaylo dib ima fahmayaan waxna uma waxaa dhacday tan tahriibin waxaan ku uri jaamacad baan rabaa Turkigan tagayaa markaan waxaan dhamaysto waa iska sii xareysanayaa scholarship baan xareysanayaa wax baan saa u dhuray haye baa laygu yiri adigu wixii saan xarxareysanayay waa ii soo baxay nasiib Turkigan imi xaqan toona ma eegine Greekan isku sii daayay Greeka haddaan isku sii daayay waxna ilaahayga gama reebin uurna ma yeelan laakiin niyad ahaan baan ka dhintay markaa waxaa dhacday Greeki baan muddo 2 sano joogay sharci baan ka qaatay Jarmalkaan imaaday Jarmalkii haddaan imaaday nolosha xoogay iskuulka hagaagtay oo de nolol xumo aan ka soo cararay ma jirin laakiin sharcigii baan helay maaragtay waxaan joogay muddo luuqadii baan bartay waa shaqaystay guriga iska samaystay bacdeen adigu mar haddaan bacidi ku ogeyn nimankiina bartaa maaragtay aad kaga timi nolol iska samayso baan sidii waxana is ilowsi makanin baad rabtaa inaad u qarisid meel ku ka daateen ha waxba ma sheegi karaba cid hooyadii xataa waxba ma sheegi nin baan ishukaansanay muddaan isla sheekaysananay haddaan muddo isla sheekaysananay inanka xiguuri waa ku guursanaya inankii waxaan sidhi maaragtay u sheeg xaqiiqada ha khiyaami maalin baan u qadi kariyey gurigayga ugu yeeray waxaan kuri walaal i dhegeyso anigu wallahi waa ku jeclahay adna waa ogahay inaad jeceshahay haddaadan jeclin guriga maa dalbateen iyo guri xalaala arrintaasaa walaal igu soo dhacday tahriibka halka ay keenayna arrintaa darteed baa usoo tahriibay walaal haddaad igu aqbalasana soo dhawow haddaadan igu aqbalaynina ma raba inaan ku khiyaamo wakaas waa u sheegay wuxuu igu yidhi walaalo wallahi way igu adag tahay afkayga kala qaadi maayo oo odhan maayo gabadha waxaasaan ku kala hadhnay laakiin ma ku guursan karo waayahay walaal baa ku idhaahda waa mahadsantaa laakiin ceebtaada allaha asturo cidna ha u sheegin intaad awoodid markaan haddana aan maaragtay sheekadii baa igu soo noqotay murugadii iyo wixii baa igu soo noqday haddana sidii si leeg inaan kalaan wada sheekaysanay markuu damcay inuu i guursadaan isna xaqiiqadii taabsiiyey walaal waa laysoo kufsaday 2 nin baa isoo kufsaday iskuulka ila dhigan jiray aan jaar ahayn qof aan u sheegay male cidna uma sheegin reerkayga cid i og male waxaan usoo tahriibay cid og male sheekadaasa maaragta maanta haddaad iga dalbatay guur aniga sheekadaas igu soo dhacday ma igu galasaa oo ma igu qaadanaysaa dari ilaahay mise iguma galasid intaan adiga ku khasaaray adnaada khasaaroobin aniguna aan murugo iyo ururig aan ku joogin inankii kalena sidii buu igaga tegay xigul walaalay arrintaada way adag tahay waanad igu soo kadisay inaan la soo qabsaday noqonaysa waana ku soo wici doonaa insha Allah uu cararay kii labaadna uu cararay ani markaa go'aan waxaan ku gaadhay inaanan maaragtay aanan qarin oo qofna mustaqbalkiisa markuu rabo inuu samaysto inaanan dee aan sheego waxaan sameeyey nin saddexaad baan isbaranay muddo sanada haddana markaan joogay sanad way ka yarayd ayaan nin saddexaad isbaranay inankii saddexaad baa maaragtay sidii oo kale markiiba gurbu waqti igama dilin 3 bilood markii la sheekaysanayay ayuu guur ii soo bandhigtay aniguna sidii maaragtay caadadu ahayd ayaan u soo bandhigay dhibaatadaydii inanka wuxuu guuri walaalitaasi qadar bay ahayd waan kugu qaadanayaa waana ku guursanayaa maadaamaad ii sheegtay qof wanaagsan baa tahay haddaad qof khiyaanolooya aad tahay imaba aadan sheegteen waan khasaari lahaayo hadhowna dee gabadh baan kugu guursan lahaa gabadhna meeshu ma ugu tegayo markaa waxaa dhacday waayahay baan kuli walaalkii waa mahadsan tahay inankii waa isguursanay nolol baa samaysanay si qurux badan buu ii soo doonay maaragtay aroos buu ii dhigay arooskii hadduu ii dhigay waxaa dhacday inaa maaragtay ilmihii u horreeyay ayay calool galay nolol qurux badan niyadda xoogay habi aan ka noqday oo maaragtay
waxaan dareemayaa inaan reerkayga waxba la ogeysin laakiin aan niyadu ii degtay maadaama aanoo xaqiiqada uu og yahay ninkaasi ii bareeray inuu guursado anoo laysoo kufsaday waxaa dhacday maalin maalmaha ka mida ayaa telefoon facebooka waxay soo garaacay maaseejarka qof bay soo wacay adug soo waca haa adkaatay haye markii toos u adkaansaay haye nin bay soo garaacay halo salaamu calaykum calaykum asalaam xaye ogaasamiya haa walaal waxaan ku weydiiyey may garanaysaa walaal may kuma garanayo ma ninkii maaragtay ku bikro jabiye baadan garanay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun markaasaan ku uri waad edab daran tahay waanaad akhlaaq xun tahay oo waad iska guursatay ninkaasi miyuusan talo waxba ogeyn ninkaasi miyuusan waxba ogeyn dee waad iska guursatay haye ninkaasi wax walba ninkaygu wuu og yahay laakiin dee sawiro maad u sheegtay in lagaa qaaday haye waxaan ku uri ma sawiraa iga qaaday amba ma ogiyo sawiraanbu kaa qaaday ani ma ogiba dee inuu iga qaaday ma sawiraa iga qaaday baan ku iri haa sawiraan kaa qaaday oo sawiradii ma haysaa waxaan kuu soo waxay waxa weynaan sawiradii ku tusaba dee acuudu billaahi min haye itus sawirada kuma tusayo sawiradan waxay ku xidhan yihiin inaad lacag soo dirto waxaan ku idhi dhegayso aniga nin baa i qaba xaqiiqadoo dhanna waa u sheegay sawirada aad ka hadlisidna ma ogi mana aan arag inaad iga qaaday iyo in kalena ma hubo ma fahantay aniga wax lacaga aan kuu soo diraya horta ma jirto noloshaydu hadday inta noloshayda ka dhiman ay sii baaba'aso maaragtay horta wax lacag aan kuu soo diraya ma jirto ma garatay sawiradana waxaan kuugu idhi aad igu handaday sida lacagta ku doonisidna dee baraha bulshada waa taqaanaa adigu ninka waa is adkeeyey telefoonka waan ku dhigayo waa ooyayo odaygaygiiba iyimi maxaa kugu dhacay waxba iguma dhicin baan ku yidhi xoogay waa iska murugoonaya arrintan hooyaday waan ka qariyey kufsigii waa xasuusanaya mar kasta wakaas marka ninkayga xoogay waxba umaan sheegin marka waqtigaas ilmihii koobaad baa u dhalay oo ilmihii koobaad oo wiila baan ugu curtay arrintii waxaan isii farahay ka baxday hadda kadib waa inaa hooyadaa u sheegtaa hooyaday baan la hadlay hooyo ma fiicantay see tahay ka war xaaladaha waan wanaagsanahay hooyo hee weli kuma sheegin sababtan u tahriibay maxaa kugu dhacay hooyo maxaa ku helay waa ooyey markaa cabaarba markaan ooyayey ay hooyaday yaaban tahay ay isleedahay tulow nama ninkii wax kugu sameeyey namuu ku dilay na wax ii sheeg hooyo baan ku yidhi hooyo berigii ma garanaysaa hebel iyo hebel soo garan maysid ee jaarkeena la ahaayee odaygii hebel dhalay haa hooyo way i kufsadeen hooyadii waa oyday way yaabtay markaa sidee kuu kufsadeen hooyo hooyo hebel iyo hebel waa i kufsadeen waa baqay cidna umaan sheegin arrintaas way igu adkaatay idinkii iskuulka igu qasbay iskuulkii idinkii iga dayn waayey iminka markii aan maaragtay sheekadii adkaatayna waan baxsaday waanigii tahriibay ninka haddeer qaba hooyo wax walba waa u sheegay in laysoo kufsaday waa u sheegay wuu igu qaatay inkastoo 2 nin oo hore maaragtay ay markaan u sheegay damceyna isoo doonaan aan u sheego ay igaga baxeen ballantii ay yidhaahdeen gabadh lasoo kufsaday anagu ma rabno inakan laakiin wax walba waan u sheegay hooyoy haddeer waxaa soo cusboonaaday arrin kale arrinteebaa soo cusboonaatay hooyo waxaa soo cusboonaatay in maaragtay maanta uu ninkii isoo waco oo maaragtay uu yidhaahdo yacni sawir baan berigii kaa qaaday aan ku kufsanayey hooyaday waxaanaan u sheegaya waan iska dhurmaya mooyaane mar horeyba istaagga ka dhacday walaashay baaba ila hadlaysa anigu marka waaban ooyayayo hadalkii waan wadaayo waan maaragtay marna waan ooyaya marna waan u wadaa waxaa dhacday in ay hooyo soo kacday ee hooyo tiri maxaa xala ninka waan dilanaa waan xiranaa waa kan hooyo baan ku yidhi adduunkao dhan haygu ceebaynina waxaan kuugu sheegi waayey waxaan sidhi aabbana maaragtay dhagar buu geli maaragtay waa laysku xumaanaya waa laysku baaba'ayaa marka hooyooy ani hay ceebaynina ubad baan dhalayaa ubadkaygu beri ka maalin yacni waxaas waa ogaanayaan marka hooyo sidaa ha samaynin waaye maxaa xala hooyoy hadduu sawir hayo 4 cishaa lay wadwadayaa hadduu sawiradaa soo dhigo
marka wixii la doonay ha laga yeelo hadday been tahayna ay sawirada uusan hayninna afkeenaynu haysananaa ihina soo duceeya in ilaahay qalbiga ninka iga reebo waa yahay halkii baan ilmahaygii baan iska haystay ninkii ima soo wicin ilmihii uurkii labaad anoo leh ayuu maalin soo wacay markuu isoo wacay wuxuu igu yidhi wixii ma soo bandhigaa mise waa iska soo diraysaa lacagtii maanta xaqiiqa bay iga taagan tahay waxaan ku yidhi wax aliya waxaa doontid soo bandhig adigana walaalahay baa ku dili aniguna adduunka korkiisa 4 cisha ceebteeda la wadwadi sidaa jeceshay laakiin lacag inaadan iga qaadeen oona lacag kuugu darintaad igu samaysay baa walaahiya marka anigu waxaa niyadeeda ka keenay ninkan hadduu fadeexad iyo lacag iskugu darsado iyo ceebtaadii iyo maaragtay kufsigii wixiiba iyo isku darsanin waxaan sameeyey ninkayga markaa uma sheegin weli oo weli wax aan hubo ma aha in sawira layga hayo waxaa dhacday ilmahayga labaad baan iska umulay gabar yar baan umulay labadeeda carruuraan iska haystay ninkaasi dhowrkii biloodba mar buu soo wacayaa oo wax soo tusayaa inankanow malaha inaad soo tahriibtaaba doonaysaabo lacagta saasaad u rabtaa inankani waxaa dhacday odaygayba maalin isagoo oo isku buuqsan ii yimi oo xanaaqsan oo maaragtay isla sheekaysanaya oo aniga dejiyey xabi maxaa kugu dhacay maxaad la buuqsan tahay maanta mashaqadiiba maxaa kugu dhacay marka wuxuu igu yidhi waxaa igu dhacay ina yaroo walaalkayba ay soo wacay oo doonaya inuu tahriibo oo tahriib iyo belo iyo lacag iyo wuxun 4 saac weydiinaya hooyadiina waa ula qabtaayo maaragtay inankaari wuxuu yidhaahdo u sameeya odhanaysa ha loo sameeyo marka dhowr wiil baa jiro oo jooga qurbaha oo reerka usoo maqan markaasaan ku yidhi dee ma keligaabaa lacagta bixinaya mise waa laysla bixinayaa maye aniga xoogga lay saaraya laakiin labada wiile kalena caawan la tashanaya waa kaasoo inamadii kale horteeda ku garaacay warheedha inanka yara dhibaatada badan lena dhibay maxaan dee ku samaynaa inanka yara na dhibay markaa inanka yar maxaan ku samaynaa inankan ay maaragtay inankan waa ka gabadha kufsaday dumaashigeed weeyaan bismillaahi raxmaan raxiim yaa inaan ku yidhi fogaatay oo cuslaatay oo adkaatay walaalkaa markaa iminka maxaa xale oo dee lacagta walaadiya walaalahaa isa saarsaara dhib ma laha marka gariigga adag anaa gariigga soo maray gariigga fudud xaggan turkiga fudud anaa soo maray xaggan waa maaragtay hadduuna dee tiisi noqon marka xaggan ha soo maree lacagtiba ina kale iskugu dardaray odaygayga waxbaa laga qaaday anigu waxbaan ku daray oo lacag baan ku daray xegbad yar aan haystay baan ku yidhi aniguna xabi waan ku caawinayaa maadaama uu maaragtay ku madax adeegay hooyana ay maaragtay markay isaantu soo hadasho war xaasidiin baa tihiin war inankamaa si un u gashaan bay odhanaysaa waa la iskugu dardaray lacagtii inankii turkiga la keenay turkiga markii la keenay wuu isoo wacay nayaha ma soo bandhigaa sawiradii mise lacag baad isoo diraysaa turkigaan joogaaye ilaan aniga wadankiina cid waxay ka qaadi kartaa markaa ma jirtay haddaan soo bandhigo cid maaragtay wadankii waxay ka qaadi kartaa ma jirto cid isoo dabaraacaysa ma jirto wixiina haddeeran meel waxaan ku idhi dhegayso aniga telefoon dambe meel dambe moobilkayga dambe aad soo garaaci kartaa ma jirto waxaa rabta soo dhig beri horaan kuu fasaxay doqon yahow anoo hadalkaa leh ayaa odaygayga soo galay markaas maxaa kugu dhacay waan ooyey waxaan ku idhi dhegayso hee arrintii baa weli daba socotaa maxaa ku daba socdaa arrintii baa daba socota ninkii wuxuu igu yidhi dhowr jeer buu isoo wacay ninkii u kufsaday baa isoo wacay hooyo waa uga sheekeeyey arrintii way daba socotaa ninkii wuxuu igu yidhi sawir baan kaa hayaa waana soo dhigaya maalin kasta lacag soo dir buu igu yidhahdaa haddii kale sawirkaan soo dhigaya aniguna lacag maan dirin soo dhig baan ku idhi ilaa haddana wuxuu soo dhigay male imisaa ka soo wareegtay inta inanteena yar dhalan tahayba ninkaasi wuu i wadwatay mar buu isoo wacayay dhowrkii biloodba mar markaasuu yidhi hadduu waxayo mar horu soo dhigi lahaa waxaan u malaynayaa inuusan waxba hayn miyaad wax lacaga u dirtay may ma hubtaa haa markuu ku soo waco ee xigta haddaan jooga aniga ii dhib amarka ilaahay 15 casho gudahood buu igu soo celiyey habeen fiida anagoo cashaynana sidaa markaan u arkay baan ku yidhi xabiib waa kane kaalay soo carar inankii raaxumaa waa kane
waan la hadlay marka wuxuu igu yiri adigu la hadal aniguna aan dhageysto wuxuu ka hadlayo samaacadii baan shiday marna inuu saa eegayaa marna codkii buu maqlayaa telefoonkii buu ku dhigay telefoonkii markuu ku dhigay wuu iga baxay waxaan ku dhahay istaji anigu wallahi sawir layga ma hayaan malaynaya kufsigeyga waa kuu sheegay waxaan kaa qariyay male waxaan isla ninkan ma ku furayaa abade uu ka tagayba waa ku dhagay waxa iga bixin ha tagin xagaad ku socotaa ilaahay ka baq marka hore adigii aaminay iminkana iminka ma ka fiicanahayo caruurtaadii maaragtay aan ku haya caruur ku dhalay ha bixin uu iska kayfujiyay gurigii baan tamcayna ka daba baxo albaabkii intuu igu xiray furihii igu rogay ninkaagi haa intuu saa dib igu tuuray adkaatay oo isaguna muxuu rabaa marka uu orday telefoonkiisii buu garaacay wuxuu ku yiri gabadha aad leedahay habeen iyo maalin sawir baan ka hayaa waa xaaskayga waa gabadhan guursaday aniga ina la kufsaday way ii sheegtay laakiin adigu kufsatay ma ogi haddaad hadeerba hayso wax bahalkii adiga kaliya maad ceeboobin ana ceeboobay iyaduna ma ceeboobiso inagaana ceeboobina haddaad hayso oo ay dhabkaa tahay arrinkaa ka noqo dhilid garee waa dumaashida caruurtaad adeerka u tahay hooyadood weeye haddii ay dhacdo inaad samaysana ana waan isdili adduunka ma wada joogano inankii telefoonka waa ku dhigay lamuu hadlin waa iska soo cararay odayga albaabka waa iga furay uu igu soo noqday anigoo de isla maaragtay oo ku soo furay uu i kiciyey fadhigii igu fadhiisiiyey wuxuu igu yiri dhageyso arrintan waan ku wareeray aad baan u xanaaqay waan naxay meelaa maraya isma garanayn adiga waxaan kugu samaynaya waxaan go-aan kaa gaaraya male dhibanaad tahay qofka dhibanahaana waa la maaragtay dejiyaa oo waa la taageeraa oo waa loo dejiyaa waxaan kugu furay anu marka waxaan ku waalanaya waxaan odhanayaa markasta waxaas uu hadal ila hadlayo ha ifurin ha iga tegin caruurtaada hooyadood baanahay ha ifurintaasan haya marka wuxuu igu yiri cid ku furaysa male cid wax kugu samaynaysan male xaaskaygii baa tahay caruurteeda aabahood baa tahay caruurteeda hooyadood baa tahay maaragtay isdeji caadi iska dhig adigu waa idejiyey wuxuu igu yiri isdeji marka iima sheegin inuu walaalkii yahay ninkiina waan wada hadalay wuxuu sawir hayaana horta laga hayaana ma jirto wuxuu yiri lacagun baa rabay waxaan gabadhan sawir ka hayaa ma jirto inankana waaban gartay waan isgaranay sawirna maba hayaba yacni balwad baan leeyahay lacag baan caawis ka rabay waxaan islaa bal hadday maaragtay aad ay wax ku siiso aad iska rikaartaysid wax uu sawir hayana ma leh hadduu hayana mar hore u soo dhigi lahaa sidaan hore kuugu sheegay aduu markuu sidaa igu yiri waa kala degay markaas habeenka halkii maan iska seexanay adigu odaygaygu hawshii si gooniyoo kale ugu jiraa ma ogi laakiin anigu ninkana wax sawir oo iga hayo sida xaqiiqada horta maba jirtaba waayahay sheekadu saysay ku ahayd inankii gariig wuxuu soo baxay meesha lahda gariiga turkigu ka soo baxay inankii dadkii berigii dhaweyd ku dhintay ayuu ka mid ahaa inaa lilaahi wa inaa raajicuun dadkii badda ku dhintay buu ka mid ahaa inkaarteedii baana ku dhacday inkastoo maaragtay markuu dhintay kadib ee la aasay ee meydkii la xaqiijiyey ayuu odaygaygu habeenada ka mida wuxuu igu yiri dhageyso ninkii saa kugu sameeyey waxaan kugu yiri waan garanayaa laakiin markii wixii ku hayay baa ka weynaa iyo qaracankaaga imaad oran yuu yahay waan garanayay baan ku yiri aniguba maxaan kaa idhahdaa yuu yahay horta ninka allah u naxariisto xabiibi iska cafi baan ku oran lahaa waa qof dhintay iminka anigu waa ku farxay laakiin markuu dhintay hooyaan la hadlay hooy maanta waan faraxsanahay kiiguu dhintay qof dhintay walaa laguma farxee hooye waan faraxsanahay kii wuu dhintay ninkii berigiisa igu sameeyey ilaahay waxaan ka baryayaa cuqubadeedu ka kalena inay ka soo baxdo uu dhinto odaygayga markuu saa igu yiri waa walaalkay buu ahaa wuuna dhintay aniga walaalkay buuna ahaa iga yar ina yaroo la kibriyey adab daran buu ahaa uu iska dhintay maanta wuu inaga hooseeya ilaahay u naxariisto iska cafi si niyadana u cafi una ducee dee waayahay baan idhaahday waan cafiye saamax buu iga yahay baan idhi waana cafiye sida xaqiiqada ah laakiin maalinku dhintay runbaa fiicane waan ku farxay ma aqaan inay dembi tahay laakiin aniga dhibaatada uu soo mariyey ayuunbaan xasuusnaa wiilkaas wuu dhintay wiil berigii u dambeysay 21kii doonyihii ku gadoomay maaragtay gariiga ayuu ka mid ahaa dadkii dhintay soomaalidii ragga wiilasha u badnaa gabadhuna nolosheedii halkii bay ku wadataa maaragtay ilmihii saddexaad ba iminka dhashay way iska fiican tahay iyadii ninkeedii waa wada joogaan laakiin arrintaasi ila soo wadaagtay weliba mar dhoweyd bay ila soo wadaagtay marka wallaahi arrin mucjisaa bay ahayd